diinteennu waa diin nasteexe in la isu nasteexeeyo oo hadday dadku midalan ay khaldamaan maxaa loo baahan yahay in yani si walaaltinimo oo tartiib wax la isugu sheego waa haddii la rabo in waxaan la bedelo laakiin markaan la rabin in wax la bedelo ayadu waa wax gaxag inaga dhig laakiin markii rabo midalan arrin dhacday in la soxo tallaabada koowaad waxay tahay khaladka dhacay in la iska waraysto saaxiibu sha'niga cidda ay khusaysana la weydiiyo oo si tartiiba arrintii la soo xalliyo laakiin innaga Soomaaliya nahayo in si tartiiba aan arrinta isu weydiino iyo inaan si kulul isu weydiino waxa inoo fudud sida kululna isu weydiino waaye maxaynu ka dhaafnay markii sidii kululaa intaasoo sanaal isku leeynaayay khilaafna hadda koow inooma ahaa natiijada aan ka gaarnay yaa ii sheegi kara oo aan ka ahayn in la isnaco hadallo xunxun la isweydaarsado yani wax la iska sheego la isku rafaado ummadii inay wadanka wada dhisato la rabay ay kala shakiso qof walba meeshiisa uu ku qallalo oo ummadan saan yeelnaaba aan iska dhahayn ayaynu ka dhaxalnay waxaa rabaa marka nabi sallallahu alayhi wasallam diinta wuxuu ku tilmaamay inuu ad-diinu an-nasiiha yani diintu kulligeedba waa nasiixo ilaahay bay nasiixo u tahay kitaabkiisa nasiixo u tahay rasuulkay u tahay muslimiinta madaxdooda u tahay dadweynaha ayay u tahay intaas oo dhan wada nasiixo u tahay mid walbana say ugu tahay shuruucda kitaabada ayaa laga wada faahfaahinaya intaas haddaan nasiixada hordhac u dhaho waxaan u malaynayaa dadka qaar waxay jecel yihiin wixii ma kolba isbuucaasi la hadalhaayay in wax laga yiraahdo Soomaa hawalaayni ma iska dhaafno mise waan ku darnayna in wax laga yiri aynu ku darna marka horta saacadan la joogo intii la isku kulaayo isbuuc maalmo la soo dhaafay iska dhaaf haddaynu ka qabanaynaa hadda xagee la kala joogaa hadda waxa la kala joogaa qof arrin khalad ah yani ku hadlay oo lagu qabsaday oo cudurdaar ka bixiyay oo arrintaas way iga khaldantay khaalidina ka bixinaya wixii khaldamayna naftayda iyo shaydaankay ka ahaadeen intaas markay joogto hawayba dhamaatay Soomaa wadaadadii maxay dhahayeen markii horena hadlay saa yiraahdo toobad keeno hayo waan toobad keeno dhah ka bacdi maxaan sii wadaynaa bis way dhamaatay taas markay dhamaato diinteena islaamku waxa ku socda sida ogsoontihiin yani weerar adag oo hadda adduunku waxyaabaha la isku haysto waxa kamid ah ghazu fikriga ama maskaxda waxaa jira marka shubahaad oo qofku hadduusan diinta aqoon fiican u lahayn meelo laga soo galgalayo dadka diinta cadowga la ah ee aan ama muslimka aan ahayn ama diinta nacab dhaliilo aan dhaliil ahayn ayaga la isboodsiiyay ayay inoogu soo gagabadaan oo diintiina saa qabto meelaha jirta marka kuwaas ayaga waxaa la rabaa marka diinteenu waa diin cilmi ku dhisan xaqiiqadana taabanaysa si cilmi ah in loogu jawaabo la yiraahdo diinteenu waa diin xaq ah arrinkana sidaas iyo sidaas ay leedahay waana sida ugu saxsan qofkii markaas gadaal kaga istaaga Soomaaliyeena hadda alxamdulillah rabbil caalamiin waxa fursad inoo ah raayul caamka ummadeenu waa raayul caam diinta u khidmaynaya oo qofkii isku daya dareenka xagga diinta inuu dadka ka soo galo oo wax ka khaldo waardiye adag ayaan haysanaa horta oo ah raayul caamka inoo samaysan xilli waxaa jiri jirtay haddii diinta wax laga sheego iyo haddii si kale la yiraahdo dadka intooda badani ama inuu ku baraarugsanayn ama ina dan kala haynba laakiin hadda isbedelada aqoonta ay keento waxa kamid ah yani diinteena islaamka cid inoo ilaalinaysa oo mas'uul inooga ah ma jirto innaga shacbiga ah ee muslimka ayaa mas'uulka ah marka waa raayul caam guud oo ah diintii inaan wada ilaalino inoo wada jirna saas waxa marka samaysay marka qofkii raba ummadan Soomaaliyeed inuu kasbado waa inuu diinteeda u ilaaliyo oo diinta uu hirgeliyo oo diinta yani uu ku baaqo laakiin haddii diinta yani ama suxun uu sheego ama yani waxyaabo kale uu soo maro dadkii ayaa ku kacaaya bas waardiye adag difaac adag oo xiran waagaas qofkii marka hadda isdhiila Soomaali way hurudaa ama dagaaladii soo kale intay ku rafaaday ayayna diinta dan kala hayno wixii doona laga samaysan karaa bal horta hal ogaado
sidaan sheegi jirnay waan soo jeednaaye indhaa farahnay gelinina cid aan ka yeelayno ma jirto waa wada baraarugsan yahay waa loo jeeda waa midaas intaas ka bacdi arinta ku saabsan mesela haweenka yani mugti waa meelaha mesela muranka badan uu ka yimaado diinta islaamku waxay ogtiin waxa imaatay ayagoo gabdhaha la duugo oo ilaahay uu yiri maw'udatu su'ilat bi ay dhanbin qutilat markaas qofkii ugu horreeyay diinta nabiga markii la soo saaray gabar ayay ahayd yaa ugu horreeyay khadiija bint khuwaylid radiyallahu anha aayad ugu horeysay iqra bismi rabbika alladhi khalaq markay soo degtayba nabiga oo gariiraay oo cabsanaayo ilaa wuxuu hore u arkay ma waxane ayaa gurigiisa ku soo laabtay asoo dhahay laqad khashiitu ala nafsi markaas waxay ku tiri kalla wallahi ma yukhzika allah abadan ilaahay kuma hoojinaayo sababtu maxay tahay tilmaamo nabigu uu ku tilmaamay yahay u tirisay markaas qofkii tilmaamahaas ku tilmaaman ilaahay ma hoojinaayo qaraabadaad xiriirsa waxa macduunka ummadda u baahan yahay u kasabtaa martida ayaad soortaa xaq ayaad u kaalmaysaa intaas oo sifo qofka leh marna ilaahay ma hoojinaayo marka xabsanin wax dhibo ku soo gaaraya majid markaas intay ka xaysay iyo wax u geys warqan ku ogtiin ayada ugu hormays kadibna markii muslimiinta la cadaadinayo oo in la dilay bilaabatay dhiigi ugu horeeyay oo la daadiyo gabar ayay ahayd yaa adeeran hayada sumaya awwal shahidin fi al-islam waa gabar awwal mu'min billah birrasul sallallahu alayhi wasallam nabi kadibna waa gabar soo doorkaas ma meesha ay gaareen gabdhaheena muslimaadka ah waxay gaareen khadiija bint khuwaylid radiyallahu anha malak jibriil intuu soo diro inuu yiraahdo rasuulka ilaahayow khadiijo ilaahay ayaa soo salaamaye salaanta ka gaarsi ilaahay baa ku soo salaamay ka warantay ku taala halkaas waa inaga gabdhaheena meesha aan u wadno iyo sida aan rabno kuwa aan marka gabdhaha dan kala hayn oo ayagu maxay ahayd ugu talagalay kaliya inay ka dhigtaan meelaha waxyaabaha lagu qurxisay diikoorka la yiraahdo oo mesela shaambaha dil soo saaray gabar ay ku soo sawirayaan oo madaxeedu qaawiya gabar leh ma shaamba ku qabaysata maxay ugu soo sawirayaan badeecada ay ku gadanayaan marka waxay rabaan inay badeecada la gadaayo gabdhaha muuqaaladooda inay isku gadaan ayay rabaan kuwii noocaas ah ayaa maxay ku dhahayaan diinta islaamku gabdhaha uma roono oo sayna ugu roonayn ayadoo la aasay intay diintu soo degtay yaa wixii xuquuq ay lahaayeen oo dhintay u cadaysay ayaa amalka ay sameeyeen daraadii jannana waa loogu bishaarey iyagoo nool ilaahayna wuu soo salaamay sharafta inta ka badan oo la gaarsiin lahaa maxay tahay hayo ma soo idinkiina maaha yani arintan xadiidka hadda laga hadlaayo mesela naaqisatu aqli wa diin naaqisatu aqli wa diin noloshoo dhan ma ah mowqif muhaddad ah ayaa laga hadlaayo nabigaana fasiray sallallahu alayhi wasallam wax lagu muru meesha ma yaala haddii mesela nabigu intuu dhoona naaqisatu aqli wa diin shib u ka dhigi lahaa markaas maro uu imaan lahaa maxaa laga wadaa maxaa loola jeedaa waa la isku qaban lahaa laakiin maxaa la isku qaban ba wixii loola jeeday nabiga sheegay soo in la qaato marka ma ah marka arinta waxa lagu xadiday markii mesela suuq la joogo oo deyn la kala qaadanayo gabdhuhu meelaha ay ka shaqeeyaan wayna ka shaqeyn karaan uma badna suuqyada waxa ku badan nimanka oo ganacsiga iyo in ka soo gabdhuhu ku jiraan ganacsiga laakiin dada shirkadaha waaweyn iyo ganacsiga waaweyn iyo hawlahaas inta badan shaqada banaanka rag iyo haweenku ay kala qaybsan tahay yani shaqada banaanka ragga lagu ogyahay shaqada guriga iyo caruurta iyo korintooda oo aan ka ahmiyad yarayn waliba hadaysan ka dhib badnayn way ka dhib badan tahay ficlan oo hadda mesela nimankan haday gabdhuhu ay dhahaan intaasoo maalmood baan aniga ilmaha guriga ku hayay maanta reerkeenan soo salaamay caruurta siihay ila 6 saac bis ila siihay bal nimankan isweydiinay ila 6 saac ilmaha dii ugu dhaafa ka war rafaadka ku qabana saacad ma kiisan kartid ko inta u booday ko inta urda ko ooynay si aad tiraahdo male laakiin hooyada markay u imaato kii ooynay uu aamusa malaka la daaray oo la damiya amal leeyahay adna nafta ka dhacday marka ilaahay asaga dadka mid walba meesha uu ka shaqeyn lahaa ayuu fuudeeyay suuqyada marka la joogo marka ragga ku badan deyn baa la kala qaadanaya marka suurada baqara dhamaadkeeda yaa ayuha alladina aamanu idha tadayantum bidaynin ila ajal musamman faktubuhu وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب يعني دين على كلا قاضنايا دين تبارك لك كلا قاضنايا مرخاتي يا لو باهن يا قفكن دين تقاضنايا إنه دين تقاطي واحد ديناي لأن قف مركو دلنا يسون دين لجوهم بدشة
hadda wadaan wax laga qorin oo markhaati loo sameeynin wuxuu ku dhahayaa anu ayoon deyn liigu lahayn baan dhashay meesha deynta iga saaraysa bal sheeg adiga haddaad sheegi weydo marka meesha deynta ka saartay oo caddayn weydo ama dokumenti ama markhaati aad keeni weyso garsooraha lagu geeyo wuxuu ku dhahayaa ninkan deyn lagu male maxay anagu waxaan ogeyn albaraa al-asliya wax la eedo qofkani asagoo aan deyn lagu lahayn ayaan ogeyn dimadiisa haddaad mashquulinayso deyn aad gelinaysid sidaa deynta ku gelisay oo ku qaatay soo caddayso si marka xaqii una u dhumin yaa waxaa la yidhi markii maalan markhaati aad samaynaysaan suuqa maadaama niman u badan yihiin 2 nin markhaati ka dhigta waxaa la yidhi maya meeshii waxoogaa yara geesgees miya ma aqaano 2 nin baa la waayey haye maxaa jooga marka waxaa jooga nin iyo 2 haween ah labadaas haweenka iyo ninka markhaatigii ha noqdeen labadan haweenka waxa laba looga dhigeen waxay tahay xigmadda la sii sheegay aayadda sii sheegaysa an tadilla ihdaahuma fatudhakkira ihdaahuma al-ukhra hadday mid hilmaanto ama dhunto wixii la kala qaatay mid kale u sheegaysa midaa waxay leedahay war maalinkii deynta la kala qaadanayo oo ninkii hebel ahaa deynta uu isku qoraayay oo markhaatiga ka ahayn horta lacagtii la siiyey 500 may ahayd 500 nawaad waalan tahay 700 bay ahayd allah khayr allah ku siiyo 700 bay ahayd haddaan marka taa loo heli lahayn 700 dhahaysa 200 dhumi lahayd 500 ay ahayd istaagi lahayd marka meeshan xaq ayuuna dhumin oo ah meeshan maadaama aan u badnayn oo khibradna aan u lahayn xisaabna waxaan ay tahay la iloobi karo baa lagu xoojinay baahine wax kala ma aha waana intaas intana uu ku fasiray oo ah markii markhaati la sameynaayo ayaa 2 gabdhood laga dhigaa iyo nin waa intaan laakiin waxa la isku khilaafaa dada way jiidayaan marka waxay u jiidayaan haweenka aqligoodu hadda soo isku ogeyn deyn markii la kala qaadanayo baa xadiisku nabigu ku sheegay qof jiidaya markaas wuxuu leeyahay nolosha oo dhan meeshii lagu arkaba aqligoodu nuswaay nabigu ma dhihin saas nolosha kale muuna sheegin ee wuxuu sheegay deyn markii la kala qaadanayo ayaa sidaas ay tahay mar waxaa jirta hal gabar markhaatiyeed la qaadanayo oo waa meeshaas waa meeshee waa meel ay khabiir ku yihiin yaqaanaan gabar umulisa ayaa 2 haween ka umulisay markay ka umulisay ayaa 2 haween laga dhaliyay ayaa iskhilaafay ilmaha yaa dhalay waa la isku qabtay haye ana kan dhal wiil iyo gabar malaha kala noqdeen mid walba wiil kartaa inay qaadato in Soomaali wiilka jeceliin maxay wiilka ku jeclaadaan talow dagaalada ku jeclaadaan iyo ceelka ilaalin jireen laakiin hadda magaalada la jooga magaalo ma ceel iyo geel meeshan taala gabdhihii yaani shaqada kooda jiray iyo kuwa banaanka noo aaday iyo kulli yaani gabdhahan xariisoo waa la arkay marka wiilashu waxay ku jeclaadaan saas ay ahayd marka haye isku khilaafeen markhaatiga loo baahan yahay kala bixisa umulisadii ayaa la weydiinayaa adaa ka qabtay markay dhalayaane balse u kala dhaleen noo sheeg haa tan wiilkay ishay tanna gabadhay dhashay waa hal gabar Soomaali wax markhaatiga furaysa waa loo saxay waxa la ord sax maxaa loo dhigi waayay warkaaga lama qaadan hal gabar tahay lama dhihin waa lagu qaatay meel waxaa jira 4 gabdhood ayagoo ah aan markhaatigooda la qaadanayn hadda idinka 2 level sheegay 4 markhaatigooda lama qaadanayo oo halkee waay zinada hadday nin iyo naag isku fadhiya ay 4 gabdhood soo maraan meesha oo ay dhahan allah anaga aragna anagu 4 waxa la waxba kama jiro sababtu maxay tahay gabdhuhu way xishood badan yihiin meeshan isku fadhiya markay arkaan allah bismillaahir rahmaanir rahiim ma sugi karaan wixii meesha ka socday way xishoonayaan laakiin 4 nin way sugi karaan 4 nin hadday arkaan xaalad saasay tahay way sugi karaan hawsha soo dhacaysay way sheegi karaan laakiin 4 gabdhood ma sugi karaan oo waaqici ma sawiri karaan xishoodka badan caadifada ku badan marka waa saas marka qadiyadu fiiri waa takhasus iyo meeshan sida ay tahay ama hadii banaanka inta looga soo baxo hay banaanka looga soo baxay ma aha markhaatigi oo midalan suuqi oo deyntii la kala qoranay ma aha waa noloshan kale caadiga ah qof walba ilaahay wuxuu geliyo aqli ayuu leeyahay xubnaha bini aadamka hadda markaan fiirino dhaqaatiirtu ha si cadeeyeen abuuritaanka ilaahay uu abuuray dadka ay kala bedelayeen oo midalan wadnaha soo qaad wadnaha wiilka ku jira oo dhiiga qaybiya iyo wadnaha gabadha ku jira ee dhiiga qaybiya mii kala duwan soo laba wadno islaama ma mida bar mid miya buuxa ma wadna leewaay kalidii leewaay xubna ahaan abuuritaanka ilaahay dadka asayada abuuray kala fiicnaanshahana rag iyo haween laguma kala fiicno ogaada laakiin naga Soomaaliya mushkilada inagu dhacday sidii madaxa loo garaacay gabdhaha loo garaacay gabdhaha naftooda waxa ka dhaadhacdayba inayba hooseeyaan markaas waxay su'aal soo weydiis sheekh ninkii way dhibayo ani waan xanaaqay asna way ka daba xanaaqay ani waaba la gartay kontaley baaban ahay boqolow muxuu iga daba xanaaqay
konton loon macnaheedu ma aha inuu kaa fiican yahay maahane waxay tahay shaqada maadaama nimanka nafaqadii iyo biilkii laga rabo oo dadka u soo shaqeeyaan haddii la dilo nin qoyskii ninka laga dilay maadaama khasaarihii dhaqaalaha la soo gaarsiiyey lama kabi karee bal in yar in lagu celiyo hadda maalan qof muslim haddii la dilo ama rag ha aado ama dumar ha aado adduunka waxa yaallo dhan haddii la qiimeeyo asaa ka qiimo badan lazawaalu dunya ahwanu cinda allahi min qatli rajulin muslim markii saas leeyahay waa gabar iyo nin waa isku mid oo yani dilka maalan hadday gabar nin disho waa la qisaasa soomaa gabadhii hadduu wiilku gabar dilana ma la qisaasayo mise waxaad leediin maya kan wiil waaye kanna gabar waaye ma jirto annafsu binnafsi yani waa kan gabar hadduu dilo wiilku yani waa la dilaa gabadhu hadday wiil ka disho waa la dilayaa marka fiiri arrimahan waa wax ku saabsan mawaadiic gaar ah oo takhasuskeeda leh oo xigmadda iyo khibradda ku jirta kulli wada caddeeyey middaas waa midda caqliga xagga diintana maalan soonkaan joognaa soddon maalmood aa la iska rabaa in la soomo 25 markaan sii maraynay gabdhihii waxaa ku dhacay macduuray noqonayaan soomaalida waxaa ku maamaadaa soon haween 30 ma gaaro 25 markuu maraayo uu ka jabay raashinkeeda iska cunay 5taas maalmood soonkii uu dhammaaday ilaahay baa u fasaxay laakiin qofkan maalan 30 ka soomay waxaa loo qorayaa 30 ayuu ramadaankii ka soomay gabadhan meeqaa loo qorayaa 25 ayay ramadaankii ka soontay way soo qalayn doontaa 5 maalmood laakiin 5 maalmood ee ramadaan qeyrkii lagu qalaynaayo qalin baa iska soo gudayaaye ajirkii ramadaanka lagu heli lahaa isku mid maaha yani maalinta ramadaanka ah oo ramadaanka dhexdiisa lagu dhex soomo way ka fadli badan tahay maalin aan ramadaan ahayn oo la soo qaleeyo maalintii ramadaanka marka nuqsaanta la sheegaayo ma aha gabdhihii ma cibaadaysan karaan diintooda ma yani way dhiman tahay macnaheeda ma waxay tahay wax ilaahayba uu ogolaaday oo macduur ay ku yihiin hadda maalan waxaan socnaa afgooyi waa 30 kilomitr saan u soconay qofa wuxuu ku daalay 25 kilomitr markii la maraayo halkaasoo fariistay qofna muula daalay 30 ayuu geeyey kan oo 25 ku fariistay maxaa ku dhacay nuqsaan oo 5 kilomitr ayaa kaa dhiman marka inta la sheego waa intaasu maahine hayaga nin iyo naag ma loo fiirinayo tusaalahaan gabara 25 kaasayba si fiican u soontay si fiican u cibaadaysatay koo nin hadduu doono ma buuna tukanin ma buuna cibaadaysanin ma inuu nin yahay ayuu diintiisu ku dhammaystiran tahay gabadhna 25tii intuu ilaahay yani u qadaray ayna caadadu ku dhicin soo buuxisay miyuu ka fiicnaanaya ma kama fiicnaanayo yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unfa wajcalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi atqaakum taqwadana maxay tahay taqwadu soo wax qofku uu kasbada maaha mise taqwo waa loo dhashaa weli maarteen qof iska soo dhashale war ninkan taqi waay maya waa inaad salaad tukato ood qur-aan akhrisato ood sadaqa baxsato taqwadu waa wax la kasbanaayo wiilna wuu kasban karaa gabadhna wuu kasban karaa marka xadiidu nabi sal ly slam asagaa caddeeyey waxa laga wado intii nabigu uu ku caddeeyey ha loo daayo intaas wixii ka baxsan oo meelo kale loo qaadana ha la iska daayo oo aan la dhihin gabdhaha intaas markii laga gudbo noloshii kale ee bannaanka ahayd xataa way ku nusqaansan yihiin aan la dhihin sababtoo ah arrin aad jiq isku tiri xilliga asxaabta markii xudaybiya nabigu dhahay madaxiina iska xirta waa noqonaynaaye wax madaxii xirtaa la waayo si la yeelo male nabigu muxuu sameeyey sal alla alay slam guri meel daashoo loo dhiso iskaga soo noqday asagoo mahmuuma murugaysan umu salama radiallahu canhu xaaskiisa waxay tii maxaa kugu dhaca rasuulka ilaahi wuxuu yidhi dadkii timihii xiirta ayaan leeyahay warkaygana ma maqlaayaan waxay tii intaa baxdo adoon waxba qof u sheegin oon hadlinba adugu xiiro kadibna waxay sameeyaan feeri wuu baxay meeshuu tegey markuu meeshii tegey tintii markuu asaga lagu bilaabay in loo xiiro intay laba isugu jeesteen waxay ku sigteen dhagaha inay isgooyaan say u boobsiyeen leh soo caqli lama keenin oo arrintii ay ku xallisanto isla xadiiska hadda aan sheegaynay oo hadda maalan naaqisaati caqli wadiin maxaa ku xiga nabi wuxuu yidhi ma arkin min naaqisaati caqli wadiin hay maxaa ku xiga oo haddana kaga adkaansho badan nin caqli leh oo go-aan leh mid idinka idin ka mid a idinkoo hadda soonkiina idinka jabaayo dhanka kale shahaadadii markii oo la qoraayo maaliyadda 2 gabdhood iyo wiil la isku daraa iyadoo saasay tahay haddana markay noqoto arrinta arrin ka baxsan weligay nabigu ma arkin uu yidhi nimanka go-aan kale ee adag wax idinka saad uga adkaanaysaan uga adkaado maba arag say uga adkaadeen nimanka runta haddii la iska sheego nimankii naagaha yaa adag horta naagaha adag sababto waxay Soomaali ku waxay dhaheen ninku waran la gilgilo wuu maraa laakiin gamba la gilgilo ma maro hadday islaan soo jeesato jiraado maanta ma baxaysid wuu fariisana leh
haddii laakiin waran loo haysto car soo bax war anima waran ii taagaysaa le waran kuu dardara waran la gilgilay rag wuu maraa laakiin gamba la gilgilay ma maro taas maxay ku tusaysaa khatarsanidooda libaaxa waxaa leeyahay waxaad sheegtaa xayawaanka keli ah ee libaaxa ka adag waa naagtiisa leeyahay libaaxada kale ee dhadiga ah libaaxa ninka way ka adagtay marka xaggaas haddii laga fiiriyo iyo aayadii kale inna kayda kunna cadiim haddaad u soo jeesataan waxa isdabamarin wax idin gaaraya ma jirto marka qadiyadu waa qadiyad saas eh waxba yaan la isku daalinin oo la israfaadinina xadiidkuna waa saxiix inuu saxiixana la iskuma haysto waa la isku wada waafaqay qof diiday iyo qof tawbad keenay iyo qof ka noqdayba kulli hadda waxaan wada taaganahay xadiidkaasi waa rawaahu al-Bukhari wa rawaahu Muslim sanadkiisa iyo matnigiisa wax dhib oo ka taagan ma jiro waa muttafaq waa xadiis saxiix ah macnihiisuna waa sidaas oo halkan uu ku kooban yahay waa la sii fasiray nabiga sii fasiray inta wixii ka sii dambeeya qofkii wax sheegay u taala marka in lagu qeybnaado waxa la diinta iyo siday tahay ama arinta ku saabsan oo kale Soomaalinimadka ah oo isjiijidka ah iyo isla meeraysiga sheeqooyana barimurti isla meerays wax ay soo saareen marka isla meeraysina la iska daayo wixii la isku hayana si walaaltinimo leh hal looga wada hadlo wadankaana walaaltinimo iyo jacayl ha lagu abuuro in lagu filan isnacay waa la soo abuuray aan bedelno isjacayl aan abuurno aad u maasantiin